dagaalo xoogan ayaa weli ka socdo deegaanka axmaarada ee dalka Itoobiya. ciidamada militariga ee dalka Itoobiya waxa ay gacanta ku dhigeen inta badan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmaarada. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiyana waxa uu sheegay in la soo gabagabeeyay una guul ku soo dhamaaday wajigii koobaad ee dagaalka ka dhanka ah jabhadda Fano, isla markaana ciidamada militarigu ay u gudbayaan wajiga labaad ee lagu soo afjarayo jabhaddaasi. haddaba xaggee ka baxday awoodii jabhadda Fano iyo xawaarihii ay ku qabsatay deegaanka axmaarada ayna ku burburisay saldhigyadii iyo xeryihii ciidamada militarigu ay ku lahaayeen deegaanka axmaarada? maxaa wiiqay awoodooda? xaggee ka baxday hogaamintii jabhadda Fano ay lahaayeen ee ay ku qabsadeen guud ahaan 90% deegaanka axmaarada muddo kooban? waxaan dhanka kale eegi doonaa 24 saac ee ugu dambeeyay dagaalo xoogan oo ka dhacay deegaanka axmaarada. jabhadda Fano oo saacadihii la soo dhaafay la sheegay inay gacanta ku dhigtay magaalo istiraatiiji ah isla markaana ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmaarada oo ku taalo ama xigtaba dhinaca xuduudda ama xadka dalka Suudaan uu deegaanka axmaaradu la leeyahay, iyo weliba magaaladaasi istiraatiijiga ay ugu dagaalamayaan jabhadda Fano iyo waxay uga dhigan tahay qabsashadeeda. waxaynu dhanka kale soo qaadan doonaa warbaahinta wadamada dariska sida Suudaan iyo Eritrea oo dhowrkii maalin ugu dambeysay si weyn u qaada dhigahayo jabka muddada kooban soo gaadhay jabhadda Fano iyo sababaha la xiriira in jabhadda oo inta badan deegaanka axmaarada gacanta ku dhigtay ay muddo kooban oo 4 beri ciidamada militarigu ay cagta mariyaan. waxaa sidoo kale iyadana dul istaagi doonaa wadanka Eritrea oo lagu eedeynayay in jabhaddan uu gacan saar lahaa isla markaana uu taageerayay iyo khasaaraha ka soo gaaray iyo sidoo kale shalaytada Eritrea ay ka qabto jabka muddada kooban loo geystay jabhadda Fano ayaynu dul istaagi doonaa insha Allah taala. waxaynu dhanka kale eegi doonaa madaxweynihii hore ee deegaanka axmaarada oo shalayto kulankii baarlamaanka ka jeediyay hadallo ay u muuqatay in madaxweynahaasi uu taageersan yahay una la safan yahay jabhadda Fano. hadalkaasi oo cadho weyn ka dhaliyay gudaha dalka Itoobiya iyadana waynu soo qaadan doonaa insha Allah. muuqaalka la saaro shargalay oo la wadaaga asxaabtiina oo aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga like-tana ha ilmaamina insha Allah taala. aynu ku bilownay bilihii ugu dambeysayba dagaalo xoogan ayaa ka socday deegaanka axmaarada kaasi oo u dhaxeeyay jabhadda Fano ee u dhaqaaqdo xorriyadda deegaanka axmaarada iyo sidoo kale ciidamada militariga dalka Itoobiya. jabhaddan waxa ay si joogto ah u soo bandhigayeen guulo waaweyn oo dagaaladaasi ay ka gaadheen kumanaan ka tirsan ciidamada militariga oo gacanta ay ku dhigeen saldhigyo waaweyn iyo xeryo ciidan oo ay cagta mariyeen xaruntii hubka kaydka ciidamada militariga ay ku lahaayeen deegaanka axmaarada, xaruntii raadeerka ciidamada militariga ee deegaanka axmaarada iyo sidoo kale xarumaha dawliga ah ee ay ku shaqeynayeen maamulka dowladda federaalka u qaabilsan deegaanka axmaarada oo gebi ahaanba ay gacanta ku dhigeen. waxaa inta uu howlgalkaasi ay wadeen jabhadda Fano ay gudaha deegaanka axmaaradu ay ku dileen mas'uuliyiin sarsare oo ka mid yihiin hogaamiyayaal, gudoomiyaal degmo, barasaabyo iyo sidoo kale taliyaal ciidan oo ka kala tirsanaa kuwa booliska iyo kuwa militariga oo si talantaali ay habeen walba ugu dilayeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmaarada. muddo kooban jabhaddaasi waxaa gacanta ay ku dhigtay guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmaarada iyadoo weliba 90% deegaanka axmaarada uu gacanta iyaga u galay. maalmo ka hor ayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya guddiga amniga ee qaranka dowladda federaalka ee Itoobiya iyo weliba mas'uuliyiin sarsare ay kaga dhawaaqeen magaalada Addis Ababa in deegaanka axmaarada lagu soo rogay xaalad degdeg ah isla markaana ciidamada militarigu ay qaadayaan tallaabo lagu soo celinayo kala sarreynta sharciga. ciidamada militarigu maalmo ka hor ayay soo galeen deegaanka axmaarada si xawaara. dagaaladii ugu horeeyay waxaa ka qayb qaadanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, diyaaradaha miiga ee qumaatiga u kaca ciidamada militariga ee dalka Itoobiya. 4 maalin gudahood ayay ciidamada militarigu waxa ay kula wareegeen 6 magaalo ee ugu waaweyneyd deegaanka axmaarada. waxaana hadda oo asbuucun ay ka soo wareegtay ciidamada militarigu ay sheegeen 80% inay gacanta ku hayaan deegaanka axmaarada. ciidamada militariga ee dalka Itoobiya waxa ay sheegeen inay cagta mariyeen fariisiimihii waaweynaa ee ciidamada Fano ay lahaayeen isla markaana kumanaan ka tirsan jabhadda Fano ay ku dileen dagaaladii dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay ay la galeen jabhaddaasi. ciidamada militarigu waxay sidoo kale sheegeen in guud ahaan deegaanka axmaarada iyo magaalooyinkii waaweynaa ee jabhadda Fano ay gacanta ku hayeen dib loo furay garoomadiisii, xarumihii dowladda iyo weliba xarumihii muhiimka ah isla markaana isku socodkooda la sugahayo.
waxaa dhanka kaleeto iyadana dagaalkan ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo sheegay in wejigii koowaad ee dagaalka ka dhanka jabhadda Fano la soo gabagabeeyay isla markaana ciidamada militarigu ay u gudbahayaan wejiga labaad ee lagu soo afjarahayo jabhadda Fano ee argagixisada dowladda federaalku ay u taqaano. si kastaba ha noqotee asbuucii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay deegaanka axmaaradu jabkii ugu weynaa ayaa soo gaadhay jabhadda Fano. in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyaadkooda ayay hal meel ku tuqaysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay adeegsanayaan ciidamada militariga ee dalka Ethiopia. waxaa dhanka kale iyadana la soo sheegayaa in 24 saac ee ugu dambeeyey 26 qof oo rayada hal meel ay duqayn ugu dishay diyaarado markaasi fulinahayay duqaymo oo ku fulinahayay jabhadda Fano. si kastaba ha noqotee ciidamada militarigu in ka yar asbuuc ayay guulo waaweyn ka gaadheen dagaaladii ay la galeen jabhadda Fano ee u dhaqaaqday xorriyadda deegaanka axmaarada. jabhadda Fano waxa ay kaashanaysaa guud ahaan shacabka deegaanka axmaarada oo taageersan ciidamadii new booliska oo ayagu diiday inay hubka dhigaan guud ahaanna ku biiray jabhadaasi, balse muddo kooban ay ciidamada militarigu ay soo afjareen. waxaa si weyn Etoobiyaanka iyo wadamada dariskaaba ay isku weydiinayaan muddada kooban ee lagu soo afjaray jabhadda Fano, iyadoo weliba garab ka helaysa ciidamadii new booliska ee deegaanka axmaarada oo iyagoo hubkoodii wata ku biiray horaantii jabhadda Fano ay bilowday dagaaladii ay la galaysay ciidamada militariga ee dalka Ethiopia, isla markaana guud ahaan shacabka deegaanka axmaaradu ay garab iyo gaashaanba u yihiin jabhadaasi. si kastaba ha noqotee inta badan deegaanka axmaarada waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada militariga ee dalka Ethiopia. ra-iisul wasaaruhuna wuxuu amar ku bixiyay sidaan horeyba u sheegnay in wejiga labaad ee lagu soo afjarayo laguna soo celinayo kala sarreynta sharciga la bilaabay oo ciidamada militarigu ay amar u haystaan. 24 saac ee ugu dambeeyay dagaalo xoogan ayaa waxa ay ka socdeen deegaanka axmaarada gudihiisa, iyadoo weliba dagaalada intooda waaweyn ay ka dhacayaan xuduudda Suudaan iyo deegaanka axmaarada ay la leeyihiin. jabhadda Fano waxay isku sii ururinaysaa xuduudaha ay la leedahay Suudaan deegaanka axmaaradu la leeyahay iyo sidoo kale xuduudda dhinaca Eritrea soo xigta oo ay doonayaan in halkaasi awoodooda xoogan ay iskugu geystaan si markaasi ay kaalmo uga helaan wadamada dariska, isla markaana ciidamo ay ugu soo tababartaan wadamadaasi. sidaan wada ogsoonaynba bilowgii dagaalkani waxaa lagu eedeynayay wadamada dariska sida Suudaan iyo Eritrea in ay garab iyo gaashaanba u yihiin jabhadda Fano, ayaguna ay hurinayaan xulaada ka horeysa ama ka aroosan gudaha dalka Ethiopia. saacadihii la soo dhaafay jabhadda Fano waxaa la sheegay inay dib ula wareegtay magaalo ku taala xuduudda Suudaan deegaanka axmaaradana ka tirsan laguna magacaabo Foreeda, isla markaana ah magaalo istiraatiiji. la wareegidda jabhadani waxaa siyaabo kala duwan warbaahinta gudaha ee dalka Ethiopia ay u qaada dhigaysaa in ay tahay magaalo istiraatiiji, isla markaana jabhadda Fano qabsashadeeda ay uga dhigan tahay magaalo aad muhiim u ah, isla markaana jabhadan ay muddo ku sugnaan karto ama ay ka heli karto kaalmooyin kala duwan oo uga soo gudba dhinaca waddanka Suudaan. waxaa sidoo kale la sheegaya magaaladan haddii jabhadu ay saldhigato isla markaana looga awood roonaado ciidamada militariga oo ay ku adkaysato gacan ku haynta magaaladani in ay noqon doonto magaalo markaasi ay ku soo urursato dhaawacyadeeda, jajabkeeda iyo sidoo kaleeto magaalo martigelin doonto qiimo weyna ugu fadhida jabhadda Fano markii loo eego dhinaca caafimaadka, dhinaca wadamada dariska oo waxyaabo badan ay ka soo gudbisan karto, dhinaca isku socodka Suudaan iyo deegaanka axmaarada, isla markaana ah magaalo naftirkeeda ay iskugu keeni karto dhalinyarada axmaarada ee taageersan jabhadani, isla markaana ay ku tababari karto ciidamo aad u tiro badan. dhanka kale waddanka Eritrea warbaahintiisa ayaa maalmihii ugu dambeysayba si weyn u qaada dhigaysa jabka muddada kooban soo gaaray jabhadda Fano. Eritrea waxaa lagu eedeynayay in ay garab iyo gaashaanba u ahayd jabhadda Fano. waxaa lagu eedeynayay in horaantii dagaalka u bilowday ciidamo aad u badan ay ugu soo tababartay gudaha waddanka Eritrea oo axmaarada ay gudaheeda soo geliyeen. waxaa sidoo kale lagu eedeynayay in ciidamada Eritreana ay ka garab dagaalamayaan jabhadda Fano oo ay garab siinayaan. waxaa sidoo kale lagu eedeynayay in hub iyo weliba saanad ciidan Eritrea ay soo gelisay deegaanka axmaarada oo ay ku kaalmaysay jabhadani, balse waxay si weyn uga walaacsan tahay isla markaana la sheegay in Eritrea ay si weyn uga xun tahay garabkii ay siisay jabhadda Fano kadib markii ay awoodii ay filaysay muddo kooban ciidamada militarigu ay ku soo burburiyeen.
eritrea waxay filaysay in sidii tigreega oo kaleeto muddo badan jabhaddani ay dagaalami doonto balse dhowr cisho oo keliya ayaa lagu soo afjaray jabhaddii fano ciidamada militariga ayaa dib ula wareegay magaalooyinkii ugu badnaa iyo deegaanadii jabhadda fano ay horay gacanta ugu dhigeen bilihii lasoo dhaafay eritrea waxaa warbaahinteedu ay sheegaysaa oo ay ka walaacsan tahay islamarkaana ay si weyn u qaadadhigayaan sababaha loo jabiyey jabhaddani muxuu yahay maxaa ku dhacay awooddoodii xaggee ka baxday maxaa muddada kooban lagu jabiyey maxay yihiin maxaa sabab u ah ciidamadii fano xaggey ka baxeen hogaamintoodii xaggey galeen oo maalmihii ugu dambeeyeyba warbaahinta aan lagu arkin eritrea waxa ay doonaysay in jabhaddani ay ku fido deegaanka axmarada oo gebi ahaanba inta dhiman ay dib ula wareegto ayna sii dagaalamaan waxa ay filaysay in garabka ay u tahay iyo sidoo kaleeto sida ay shacabka deegaanka axmaradu ay u taageersan yihiin in ay usii dagaalami doonaan awood xoogganna ay yeelan doonaan islamarkaana ciidamada militarigu aysan loodin doonin balse 4 cisho oo keliya ayay ciidamada militarigu cagta mariyeen kumanaan ka tirsan ciidamada fano ayaa la burburiyey waxaa la qabtay 100,000 oo ka tirsan jabhadda fano waxaa gebi ahaanba laga qabsaday deegaanadii ay haysteen waxaa gebi ahaanba cagta la mariyey xarumihii hubka kaydka iyagana u ahaa iyo meelihii ay ku kaydsan jireen hubka waxaana looga dabagalay buurihii ay gabaadka ka dhiganayeen oo hadda weliba lasoo tabinayo in hogaamintii ugu sarraysay ay meel jaaniya cidhib ay dhigeen aan la haynin si kastaba ha noqotee dagaalka ka socda deegaanka axmarada oo mas-uuliyiinta deegaanka axmarada kasoo jeeda naftirkoodu inta badan ay taageersan yihiin jabhadda fano shacabku uu taageersan yahay ciidamadii new booliska ay raaceen jabhadda fano oo ay ku biireen iyaga iyo hubkoodiba 4 baali oo keliya ama 4 maalin oo keliya ayay ku burburiyeen ciidamada militariga ee dalka Ethiopia gabadfalo waaweyn ayaa ka socda xasuuq ayaa socda dhanka kale shacabka deegaanka axmarada ayaa la kulmaya gabadfalo tacadiyooyin kaga imaanaya dhinaca militariga iyo dhinaca jabhadda waxaa sidoo kale shacabku ay la kulmayaan duqeymo joogta oo lala beegsanayo jabhadda fano balse intooda badan haleelaya xarumaha shacabka iyo goobaha shacabku ay ku sugan yihiin madaxweynihii hore ee deegaanka axmarada oo shalayto ka hadlayay kulankii baarlamaanka dowladda federaalka Ethiopia ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday hogaamin xumo iyo sidoo kaleeto dagaaladan ka socdaba inuu sabab u yahay xisbiga PP ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed madaxweynahani waxa uu kamid ahaa mas'uuliyiintii u ololeysay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu kursiga imaado waxaa sidoo kaleeto uu qayb ka ahaa xisbiga PP horaantii talada uu la wareegay xisbiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed balse waxa uu ka dib dhaliilay oo uu ka hor imaaday hanaanka iyo siyaasadda xisbiga PP madaxweynahan waxa uu sheegay in dhammaan dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia rabshadahan socda xasuuqan iyo dhibaatadan ka taagan 5 sano la soo dhaafay ay sabab u yahay xisbiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ka hadlayay golihii baarlamaanka iyadoo gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda federaalka Ethiopia uu ku wareejiyay makarafoonka isla markaana uu ka qayb galiyay dooda la xiriidha sababaha ay colaada ugu siifadayaan gudaha dalka Ethiopia dhammaan eedeymaha waxa uu dusha ka saaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo uu ku eedeeyay inuu yahay qof ku fashilmay siyaasadda isla markaana loo baahan yahay in laga tashado oo gacanta dadweynaha iyo sidoo kale siyaasiyiinta lagu soo celiyo talada dalka waxa uu sidoo kale uu sheegay in xukuumadda hadda jirtay ay wax waliba iyadu awood ciidan u adeegsanayso halka ay qancin lahayd xisbiyada mucaaradka isla markaana dib loogu soo celin lahaa talada xasaabta iyo sidoo kale saamilayda siyaasadda ee dalka Ethiopia waxa uu dhanka kale sheegay in loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dhiso dawlad ku meel gaar oo laga dhiso deegaanka axmarada isla markaana laga qayb galiyo xisbiyada mucaaradka oo ay ku jirto jabhadan hadda dagaalka kula jirta ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ee Fano si kastaba ha noqotee dagaaladu wali waa socdaan dowladda federaalka Ethiopia go'aankeedu waxa weeye inay soo celiso kala sareynta sharciga ciidamada federaalka Ethiopia waxa ay ku jiraan wareegii ugu dambeeyay ee la sheegay in lagu soo afjarayo jabhadda Fano wixii ka soo kordho wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa